موضوع أصدقه هدي لقى هذا هيو وين لقى هذا علمي عدالة واحد شره وين سيدا يهين لو شيغا أن لا بونبونين وين لقى هذا سي عدالة بل دينتين ما أقلا waxa noocan oo kala ah in laga dhigto waxa lagu sheekaysto oo lagu hadlo lama ogola diinteen xishood bay taqaanaa diinteen hadal gaabni bay taqaanaa gaar ahaan waxa la xiriira dumarka xurmo gaara iyo xishood gaara bay leeyihiin marka in xataa la fududaysto oo afka lagu badiyo waxba la kufsaday waxba dhacay xaye ka dhacday saasay noqotay oo baabka la fududaystaahay khatar buu leeyahay marka hal iska ilaaliyo waxaan xataa sheegi karnaa ama muuqata in waxyaalaha qaarkood isku bedeli karaan ganacsi oo sida shirkadaha maaragtay ka shaqeeya IT-da ka shaqeeya ay u abuuraan fayraska si loogu iibsado fayras loogu iibsado kuwa daawooyinkuna ay cudur abuuraan si daawo loogu iibsado ay dadka qaarkood waxay abuurahayaan dhibaato aan jirin si ay u soo farageliyaan dawladdeena iyo dalkeena iyo ummadeena marka xaalad abuuridda iyo shaqo abuuridda hal la iska ilaaliyo ha ahaato in lagu gaabsado waxa jira oo runta ah marka wixii jira waxa lagu daaweyn karaa waa dhaqankeena fiican waa diinteena fiican oo kow ay ka tahay in akhlaaq fiican la fidiyo oo dhalinyaradeenna iyo raggeena iyo dumarkeenaba akhlaaqda diinteena amraysa la qaato lagu tarbiyeeyo waxaan suurtagal ahayn in aan raadin akhlaaq wanaagsan iyo dumar dhowrsoon iyo rag wanaagsan in aan raadino meel la aan ka amaanayno gabar qaawan oo heesaysa iyo wiil dhafoor xiran oo heesahaya meel ka amaanayna isku hilimayne aan wada dooranno wadada asturka iyo xishoodka iyo qadarinta iyo akhlaaqda ama wadada isqaawinta aan dooranno in TV-geeni iyo meelaheeni iyo masaarixdeeni wiil iyo gabar isku dhagan oo isku heesahaya oo jacayl sheegay ka soo baxaan hadhow la yiraahdo maxaan ku waxa dhacay waa dhacayaan maxay adiga bilaabay wax kastana wadada la qaadsiiyay qaadahayaan marka waa in akhlaaqda la ilaaliyo oo dhalinyaradeenna iyo rag iyo dumarkeenaba ay akhlaaqda ilaaliyaan in guurka la fududeeyo waa shay muhiim ah oo la dhiirigeliyo oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyo inay guursadaan oo maaragtay la kaalmeeyo oo la sameeyo ururo ka shaqeeya inay guurka fududeeyaan oo lacag geliyaan oo sanduuq loo furo sanduuqa qaran ee fududeynta guurka la yiraahdo oo kii guur la'aan ahaa uu guursado kii hal haystana laba guursado kii laba haystana saddex guursado kii saddex haystana afar guursado raalli ahaada gabdho waa badan yihiin gabdhaha waa in si fiican loo xurmeeyaa wadada Ilaahay u jidiyay oo ah in wiilku uu maaragtay guursado ayaa sax ah in la shaqaalaysiiyo wiilasha raalli ahaada in wiilasha la shaqaalaysiiyo oo maaragtay hadii aan wiil shaqaalaysiino gabdhaha waa la shaqaalaysiinayaa laakiin hadii wiil la shaqaalaysiiyo uu guursanayaa gabar la shaqaalaysiiyana maxay sameynaysaa ma guursanaysee nin ayadoo kale hay sugaysaa inuu yimaado sugaysaa xogaaga ay haysato waa sax xogaa ay haysato xogaa hooyo siinaysa waa sax ayay siinaysa waa sax laakiin ku guursan maysee nin waliba ayada oo kala ah bay sugaysaa laakiin wiilka la shaqaalaysiiyaa gabar faqiir uu guursanaya oo jecel yahay sabab ba sheegaya gabar faqiir ah uu jeclaaday buu guursanayaa markaasuu ayadii iyo cideeda kullu lagu liibaanaya marka waxa weeye hatta shaqaalaysiinteena way ka qayb qaadataa in bulshada maxaan ku la meeleeyo oo qoys badan maxaan ku yiraahdaa la amaamudo marka runtii hadii mid aan qaadano oo arintan looga jawaabo si aqli cilmi ah aan caadifad ahayn